بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لها قيمها بدن كسر دواد أرداجين. واحد شري هذا كهر ويل اللي يراه أردم يدوك سجسراء كدب نقل مد كمدة جامعة ده هديجان كيس ويل كاسي وحيس برتين قبل هذا قروح بدن وحنا وسمين شري قبل داس وحكستو وناكسن وحو كان شري هديدو wuxuu uga warhayn jiray si joogto ah isla markaana wuxuu ku dadaali jiray waqti kasta sidii uu uga farxin lahaa gabadhaas iyadoo ay taasi jirto haddana gabadhaasi waxay wiilkaas ula dhaqmi jirtay si aad u xun iyo habdhaqan aan u qalmin isaga wiilkii wuxuu aad ula yaabay sababta keentay in sidaas loola dhaqmo isagoo ula dhaqmaya gabadhaas sida ugu wanaagsan ee bini'aadam loola dhaqmo wiilkii wuxuu isku dayay inuu naftiisa wax ka bedelo wuxuu sii horumariyay habdhaqankiisii gabadhiina wuxuu ula dhaqmay si ka wanaagsan sidii hore haddana sidii hore ee xumayd ayaa loola dhaqmayay isaga wax isbedelina ma jirin habeenkii dambe wiilkii oo murugaysan ayaa yimi gurigoodii wuxuu diiday cashadii kadib wuxuu galay qolkiisii aabihii ayaa yaabay una tegay wuxuu ku yiri maxaan ku helay aabo wuxuu ku yiri wiilkii aabo maxay dadka qaar inoo xumeeyaan si kastoo aynu u wanaajino inagu odaygii wiilkiisii wuxuu siiyay dhagax yar oo qurux badan wuxuuna ku yiri dhagaxan suuqa gee soona iibi marka qofku weydiiyay qiimihiisa ha u jawaabin kaliya labada farood kor u taag wiilkii subaxii ayuu aaday suuq yar oo u dhawaa gurigooda isagoo sita dhagaxii muddo yar kadib islaan ayaa weydiisay qiimaha dhagaxa wuxuu kor u qaaday labadiisii farood islaantii waxay ku tiri $2 miyaa waan ogolaaday inaan bixiyo qiimahaas wiilkii islaantii ayuu ka cudur daartay isagoon ka iibin wuxuuna u yimi aabihii isagoo u sheegay in $2 lagu baayacay dhagaxii odaygii ayaa yiri waa si wanaagsan imikana waxaad aadaa meheradaha lagu iibiyo dahabka wiilkii sidii ayuu sameeyay wuxuuna geeyay dhagaxii meel dahable ah ninkii meherada haystay ayaa weydiiyay qiimaha dhagaxa isla sidii hore ayuu wiilkii labadii farood kor u taagay ninkii ayaa ku yiri ma $200 baa waan ogolahay wiilkii ayaa ku yiri in yar isug aabihii ayuu si degdeg ah ugu laabtay wuxuuna u sheegay wixii dhacay odaygii baa yiri waa si wanaagsan haddana waxaad geynaysaa dhagaxa meelaha madxafyada ah ee lagu kaydiyay agabka taariikhiga ah wiilkii wuxuu tagay mid ka mid ah madxafyada magaalada wuxuuna u sheegay inuu hayo dhagax qaali ah markii la weydiiyay qiimaha dhagaxa wuxuu kor u taagay sidii caadadu ahayd labadiisa farood maamulihii madxafka ayaa yiri $200,000 miyaa waan ogolahay wuu u qalmaa dhagaxani lacagta intaas leeg wiilkii oo faraxsan ayaa ku soo noqday gurigooda aabihiina u sheegay wixii dhacay maanta wuxuuna uga warramay sida uu ula yaaban yahay arrinka dhacay wuxuu yiri aabo markii hore waxaan geeyay suuq iska yar waxayna inoo soo bandhigeen $2 oo qura kadib waxaan geeyay meel dahable ah waxayna inoo soo bandhigeen lacagtii hore ka badan markaan madxafka geeyayna waxay igu baayaceen lacag dhan $200,000 haddana waa isla dhagaxii uun sidee macquul ku tahay aabo ayuu inankii weydiiyay odaygii ayaa yiri aabo arrinkani waa ka aan doonayo inaan ku fahansiiyo adigu waxaa tahay dhagaxaas oo kale muhiim ah meesha aad ka timi laakiin waxa muhiim ah meesha naftaada aad dhigayso markaad geysay dhagaxaas meel suuqa oo raqiisa waxa lagu soo bandhigay sixir raqiisa sidoo kale markaad geysay meel qaali ah oo wax kasta oo yaala qaali yihiin waxaad heshay qiimo sare oo qaali ah sidaas si lamida qofkaas qiimahaaga hoos u dhigaya maaha sababtu inaad tahay qof bilaa qiimo ah oo aan mudnayn wax qadarin ah laakiin sababtu waxa weeye inaad geysay naftaada qof aan qiimahaaga garanayn agtiisa cajiib qof aan waxba danaynin qof aan dadka kale tixgelinin qof aan qiimaynin wax kasta ama cid kasta oo ka agdhow haddaba aabo si aad u dareento qiimahaaga waa inaad ogaataa dadka sida dhabta ah u garanaya qiimahaaga
dadka yaqaana waxaad u qalanto iyo waxaanad u qalmin mar walba ciladu maaha dhankaaga maaha in adiga aad wax ka khaldan yihiin marmarka qaar xaqiiqadu waxay tahay inaad adigu naftaada dhigtay meel aan u qalmin markasta oo aad ka tanaasusho waxa aad xaq u leedahay waxa hoos u dhaca tixgelinta dadka kale ku hayaan gunaanadka qisadani waxa weeye haddii aad aqbasho wax ka yar waxa aad istaahisho waxa lagu siinayaa wax ka yar waxa aad aqbashay dhammaantiinba aad baad ugu mahadsantihiin la socodka iyo daawashada barnaamijkan waxaan rajaynayaa inuu idin anfacay mowduucani inta ka horeysa barnaamijka kan xiga salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh